munaasabaddan oo ahayd mid lagu mahad celinayay ciidamada sugaya ammaanka deegaanada Galmudug ayaa waxaa soo agaasimay dhalinyarada gobolka Galgaduud waxaana ka soo qayb galay wasiiro xildhibaano saraakiisha ciidamada ugu sareeya ee dowlad goboleedka Galmudug. munaasabadda ayaa waxay ka dhacday duleedka caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ee Dhuusamareeb. ugu horeyntii waxaa munaasabadda ka hadlay oo faahfaahin ka bixiyay dhalinyaradii soo agaasintay qaar ka mid ah kuwaasi oo dhiirigelin u sameynayay ciidamadana guulo wax ku oola ka soo hooyay deegaanada Galmudug. inaan ugu mahad celino saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee galabta halkan nala jooga oo runtii waqti qurux badan galabta la siiyay waqtina aan la qaadanayno iyo xildhibaanka dalka federaalka Soomaaliya laakiin taliye xerow taliye Cabdi Casiis taliye Qooje taliye Cabdi Dheere taliye Farxaan iyo sidoo kale taliye Mukhtaar dhammaantiin waxaan leenahay mahadin ka gaarto runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay shaqada qaran ee aad ka wadaan deegaanada Galmudug ee aan isleenahay bilooyinka hor meesha ay joogto maanta ma joogto dadaalka aad ka wadaan Galmudug oo quruxda badan sida aad u wadaan xildhibaanka iyo dhammaan taliyaasha ciidanka qalabka sida dhammaantiin sida aad u dhiirigeliseen hawsha u wadaan firfircoonidan ee quruxda leh hadda ka hor way jiri jireen saraakiil iyo ciidamo ma arki jirin tasaa u firfircoon aad ka maanta u shaqeynaysan Galmudug horumarkeeda aad uga shaqeynaysan haddana dhalinyarada Galmudug waxaan isku raacnay maadaama anagu awood kale aan nahayn oo qalabna aan qaadi karin shaqo kale aan qaban karin in ay nii mahad celino. ugu dambeyntii waxaa dhalinyarada mahad celin u jeediyay xildhibaan Cabdixakiin Macalin Axmed iyo taliye Qooje oo labaduba ka soo qayb galay munaasabadda dhiirigelinta ciidamada Galmudug. waxaan runtii si gaar ah u saraakiisha ciidanka oo aan ugu dowrka fiican ee mujtamaca Soomaaliyeed gaar ahaan reer Galmudug ugu jiraan maanta shaqada ay halkan ka hayaan hawsha ay ku jiraan oo aan xaqashada lahayn habeen iyo maalin ay shaqeynayaan subax iyo galab ay shaqeynayaan adag tahay inaad hal meel ka hesho gurceel ay jiraan cadaad ay jiraan gaalkacay ay jiraan caawud waaqay jiraan Dhuusamareeb ay joogaan meel walba ay taak ugu jiraan dhulka marka de runtii ayagaas mudan in loo mahad celiyo shaqada fiican ay halkan ka hayaan iyo hawlaha socda marka warku ma la badinayo malaha roobkan si fiican la iskaga joogo iskaga kaanado oo ku fiicnaan lahaa waa qurux badan yahay aadan ku mahad celinaa runtii dhammaantiin saraakiil kala duwan oo wasiiro Galmudug fadhiya iyo xildhibaano Galmudug fadhiya mas'uuliyiin mahad celiyo sida ugu mahad celisay daldan qurux badan ilaahay fadhigiisa sidan amniga dadka oo shaqeeyo ay taabo gashay nabadan maanta ku joogo Dhuusamareeb iyo meesha aan fadhino marka ilaahay baan mahadcelinayaa iyo sababa bulshada kale roobaan u socdo waxay waqti badan loo sii hadli karo iyadoo oo mahadcelinaa waxaana shaqada meesha ka wada dadku ku baraarujiyay Fartuun Maxamuud Axmed Fartuun Filsan Somali Cable TV Dhuusamareeb.